dhaqaatiirtu waxay dhaheen xamar wax ma lagaaga qaban karo bahasha meel xulay fadhidaa ummadda muslimka waxaan ka codsanayaa Soomaalida in xamar wax laga qabo in dibadda taa in la diro waxaan macna laga soo bixiyo si aan leeyahay hadda soo baxay ahay in wax laga qabta aan ka muslimiinta ka codsanayaa حتى الدولة حتى مدحوينها أما زي الوزارة أما قدوميها قبل كهذا حكاسنا إنه حليه قبته إنه يرقصهم عليه عن هاي ما دام كان يقول هذا محن حبابي كنا حي حين كاغا محن نعبهي محن حبابي كنا عي باور ayaan ka soo raacay Soobe marka amaanteed kala waxaan ka imaaday gobol inta dhaawacmay guul mareera ka imaaday gaariga marka ka soo raacay lambar 4 marka maraa luga min ari ka ah marka darawalka cunugiriisa u saarnaa marka cunugiriis marka wuxuu dhahayay cunugiriis la socday goomistaan goomistiya istaagni yarka marka masaajidka uu sii socday oo goomistaa ka shaqeynaa cunugiriyo uu aariyay bacsidaa ku iska qaado meesha anoo saas u taagan oo aariyada saas anoo ugu haayo xabadan niman baawar wataan wadaday ku furanayaan wadadan markaas waxaa joogeen nabad sugida joogeen أنا كذا لو بتنتظر ويا حبدان إنك صح كان دعادي من كم ذا أنا حلي دخل عمله أملينا والله كل حي طبعا كي معلن سبدي أو دور نما أهل ما كرت أو حلقة حشيخ محمود أو جبين أهل كم مقالة أنا حمروين أنا آدي مركب مقالة ودكتور أنا سوق أنا كإبدي أنت إيسار أنت هو هالمرة وشوعي هو ميها واصوص عليه خذ النوبسي خذ أنت سوق ذي إيسار أنت خايل يسوي يرتي اللي بير كذا داعي إسبال مدينة ويالا ما لحد داعي كجاري حبت أول داعي آدي آذان أول نحي حالة حلول كجري وحنا لما هن عيدان المشاعر لما سينين كنت waxay u kalaftay hooyada in asaageeda naag dhar ay u dhaqayso aan arkay waa qamaamadaas xagga fadhido marka anigu dugsi dhiganayo ayaan ka baxay hadheer saanafaadka inta lagu jiro allahay silcaan yaro inaad gariyo shaqaystid sida bir ku dhaxgalay sida heerkaas ku soo gaaray ka baad baatadana u dhacday cidana ani u tiirsanay ana biilka dhiibi jiray بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعنه ونكسن داوديال إذا بمن والباء الدنيا ده كجوكتان يسوي لي بأموقه إن مخلوقين نبيدين سوغارية واحد كسر دواتان برامج كريبانها قرصون وعد كداواتان تلفزيون كصومالي كيبل انت بدن برامج كوحيدين كجي مادام مقالة مقدشة عاصمة الصومالية تضبط كان نوعا كسر قادنا إن هدي الله ود لله هلا إن سكرية حسن شيق وأهويل لين يرى إسلام مركزين دبعتها يكون عضي إن سنة دي لبضو كل حي طبانكي إن سكرية إن مدح أيها وحكا دعي حبض ومركزي سامسي أسيجا نولشي قويس كيسوبا إن سكرية هذا صعد كيسة
ayaa dhibaya oo neerfaha ayaa dhacsan xabadda weli way ku jirtaa sidoo kale oo lagama saarin goobo caafimaad oo kala duwan oo magaalada Muqdisho ku yaala uu tagayna waxaa loo sheegay in xaaladiisa caafimaad aanan magaalada caasimadda Muqdisho iyo dalkaba aanan waxba looga qaban karin isla markaasina uu u baahan yahay xaalad caafimaad oo dalka dibadiisa ah gaar ahaan Sakariya waxa uu sheegay in dhaqaatiirta ay u sheegeen in xaaladiisa India iyo Jarmalka wadamadaas si gaar wax looga qaban karo isla markaasina u baahan yahay in qalliin lagu sameeyo oo xabadda laga soo saaro toddobaadkan barnaamijku intuu soconayo xaaladda Sakariya Xasan Sheekh ayaad si dhow ugu baran doontaan iyo noloshiisa siday u saameysay asigoo ahaa qofka kaliya ee qoyskiisa u dhaqdhaqaaqayay amaba u shaqeynayay oo ay ku tiirsanayeen haddii Allah awood laga helo barnaamijka Sakariya ayaad si dhow ugu baran doontaan nala socda Sakariya Xasan Sheekh ayaa inooga sheekeynaya markii ay dhibaatadu ku dhaceysay iyo waqtiga ay ahayd iyo markaasi xaaladda uu galay markii dhibaatadu ay soo gaartay iyo saameyntii dhibaatadii ay ku reebtay ayuu inooga sheekeynaya waan gartay Sakariya bal waxaad nooga warantaa kowdii xaaladaada sida ay ahayd iyo markii dhibaatada ay kugu dhaceysay iyo baawur ayaan ka soo raacay Soobe marka maalinteed kale waxaan ka imaaday gobol inta dhaawacmay kuula mareera ka imaaday ka bacdi ninka gaari iska lahaa soo waxa dhayniyo subaxdii hurdada sax camal ka kacay waxa dhayniyo baawurka uma oo wixii ka bedelayna ka bacdi biridan baa bixina to aleedmo sax waaya hadee gaariga aaday wixii ka soo habeeyay waxay duhurnimo camal 6 saac markay tahay aan ka soo tagay marka baawura Soobe ka soo raacay oo xaafadda soo aaday gaariga markuu ka soo raacay lambar 4 markuu maraa luga min arika marka darawalka cunugiriisa u saarnay marka cunugiriis marka wuxuu dhaynayo cunugiriisa la socday goomistaan goomistiya istaagni yarka marka masaajidka uu sii socday oo goomistaa ka shaqeynay isgiriyo u aariyay ka bacsidaa ku iska qaado waayaan marka gaariga marka meesha anoo saas u taagan oo aariyada saas anoo ugu haayo xabadan niman baawur wataan wadada ku furnayeen wadadan markaas waxa joogeen naba sugida joogeen kabacdi ninkan xabado furay 4 qof ah ku gaartay kabacdi adiga 3 qof anagoo isbitaalka aan keen Madiino ana marka anagoo ka dalabsan taarkaas u ay xabadan ay ku dhacday sax oo kaaga dhacday dhanka madaxa ama waxa la dakhray amala u maleynay marka dhinacaana u dhacay oo kuwa wiilal waxa ay soo qaadeen oo meesha ku jaad ka shaqeeyaan kuwaas ay soo qaadeen baawarka ay saareen dadka kala dhaawac ay noqdeen islaan kale way ku dhacday wiil kale oo arday waa ku dhacday dhibkaas dhacay isbitaal Madiina xoogaa ku jiray koomka ka soo baxay xaafadda waxa la keeneen gurigeedii aliga suuq baad ku yaal ka war markay dhibaatadaas ku gaaraysay waqtiga ahayd waa 2016 maalin sabti oo duhurnimo ahayd waa kartay oo xiliga Sheekh Maxamuud oo gabagabeen ahayd waa kartay ciidankan in asluubta ka tirsan oo ahaa nin waalidkiisa soo caro ciidanka asluubta noqday taliyaha marka oo ninka la socday aan basugada qabteen sida ninka lagu xiray meesha la geeyay ka bacd meerkay meesha soo dhamaado intaas ay ugu dambeysay hadii koomka ka soo baxay gurigeedii la geeyay waxa la yiraahdaa ninka ku xiran yahay ka bacdi waalidkayga wuxuu soo bixiyay nimankii waxay soo qaadan daawo waxa say bixiyeen ka bacdi intuu waalidayga la yiraahdaa sawir ku maqlay waxa la yiraahdaa ninka waa la fasaxay asaas u soo baaya handay shibaan kala ka aamusay aniga miirkeeda markaas caadi ma ahayn waxaan sanahay hadii muddo gaari lagu riixay gaariga jimicsi lagu waday alxamdulillah waa taqineen alxamdulillah waxa ay ninkan ana qalaayo xulba ana qabanayo 4,500 halaysiyo marka waa la isku laabtay ka bacd dhakhtar kale oo Abu Bashir Ali Gay waxa ay ninkan yaa la qalin oo caafimaada uu lugtu bijiday laakiin quraan hal saaro jimicsigiisna loo sii wado baaya waa sida marka qaliinka laga dhaafay sidaasaan
markaa igu soo garguuridii anoo joogo marka xaafadana soo aada hooyo joogto sidaa xaafad ku joogaa marka meel walbaan isbitaaladan waxaan tageen isbitaalka oo Martiina ugu dambeysay waxay baasha mar xunay taaganta ana dhakhtarna noloma joogo digfeer ay dilay digfeer hadii aad wax jooga male iska soo laabtay marka ilaaha talada iska saartay waan gartay marka sikriya ka waran maadaama markii hore darwalaad ahayd oo gaari ku shaqeysanaysay dhibaatada markii kugu dhacday kadib xaaladaada iyo qoyskii markaas reerkaada oo adiga kugu tiirsanaa sida aad sheegtay dhibaatooyinkii ka dhashay bal ka waran hadii aad nala wadaagto wallahi horta aabbe nin ciidan oo ahaay xaalad xun ku jiray waxna lama hayn ciidan mushaar lama siineenin tanta waxay u kalaftay hooyada in asaageeda naag dhar ay u dhaqayso aan arkay waa qamaamadaas xagga fadhido marka anigoo dugsi dhiganayo ayaan ka baxay waxaan dheer saarfaadka inta lagu jiro allahay si lacaan waxaa roo inaad guriyo shaqaystid sida bir ku dhaxgalay sida heerkaas ku soo gaaray kabacdi dhibaatadan ay u dhacday cidana ani u tiirsanay ana biilka dhiibi jiray dabkaas ay u dhacay marka markii adiga asaas dhibaatada ku gaartay kadib qoyska xaaladooda iyo bal ka waran والله خوسك حالدود way ka sii dartay marka aniga koomka soo baxay ka baad xoogaa soo fiicnaaday ayaan baabuurada iska dhaxgalaa waxay isyaana iska qaataa sida cid iska biilay marka hadda maalmahan duqaada xoogaa biilyar bilaabay marka sidii dhibkaas waa isku jiraa waa gartay hadda taa maamada taa way xanuunsantaa isha taa in laga qalay rabtaa oo iskora ku dhacday isnaxtinta aniga sida u dhaaway ka baad si u naxday iskora ku dhacday ishaan saaba ka furmo ishii loo qalnaa rabaa marka lacagna lama hayo meeliga xanuunsantahay sokoreen ku dhacday aniga qof xanuunsanaa noqday wallahi xaaladda aad u sahlanta waa kartay marka hadda socodkaada iyo ka waran dhaqaaqaada wallahi farahan iyo ma dhaqaaqayaan wax dhaqaaq wallahi ma jiraan habeenka saliida mariya waa jumciya alxamdulillah hadaba aan ku socdo nasiiba balaya dadaba dhamaanooyin iyo lalaaya marka faraas iyo dhaqaaqayaan jimicsi oo bisha asku yaala tagay lacaga leedahay adii dibka saa jimicsi labadoo biraan dhigtay ka baad bisha haday dhamaata xalay lacag kayso lacag ma ayaan day ka baad waxa leedahay iska baxda lacagin waxa ka soo tagay xaafadii isku jooga waxba ma ahay masaajidkaas iyo gurigaas aan u dhaxeeyaa mar laamigaas arkay ninkaas oo saaxiib aanana waatahay daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhibanaha qarsoon oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho gaar ahaan hooyiga Sakariye Xasan Sheekh uu ka degan yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab Maryan Sheekh Cismaan waa hooyada dhashay Sakariye Xasan Sheekh iyadana waxay bal inooga waramaysaa bal xaaladda wiilkeeda oo markii hore qoyskoodu ay ku tiirsanayeen iyo dhibaatadu markii ay ku dhacday iyo sidii ay u saameysay iyo xaaladiisa ayay inooga sheekaynaysaa wiilkan markii hore saa biili jiray waxna isii jiray maanta xabadda markay haleeshay oo shaydan hoos gadaal ay u dhacday wax maanta aan haasana male ninkii hay jiray wax isii jiray sawaay waan iska dib qabnaa hooyo macaan aad dib qabnaa wiilkayga aadan dhibaatada u gaartay ilaahay amarkiisa ku dhacday wixii waa dhacay ma soo noqonayaan ilaahay caafimaad khayr qabta Allah siiyo intii ummad nabi maxamed oo wax noo gargaar kartan hanoo soo gargaarto waxaan doonayaa ma gartay ay ka waran markii lagu soo sheegay wiilkaaga in dhibaatada ay ku dhacday sida ay kugu soo gaartay in uu dhaawacmay hadii aad nooga sheekayso waqtigaas subaxdii hore inta ana labadaan isa deganay ka magaalada ana Xamar Weynaan aaday marka magaalada u degtay ana suuqa dhexda aan ka imaday oo cuntada ii saaranta hooyo hal mar oo soo wacay hooyo miyaa waa soo socday qadar noo buubsi qadada inta suugada ii saarantahay khayli ii soo yeertay hal wiilkaada dhaawacay isbitaal Madiina oo yaala madaxa dhaawac ka gaaray xabad ugu dhacday aad iyo aadan ugu naxay naxtinka aan naxay waan orday isbitaalkan taga ogaal ma lahayn ninka markaan tagay miir iyo toona ma lahayn alxamdulillah aday meeshiyaan ku rafaadnay haddana intaana laga jawaabaa soconaa ma lahayn quraanka kalaanka ilaahay saar alxamdulillah shukrullahi rabbil caalamiin hatta dad ii soconaa alxamdulillah haddana ilaahay ku mahadaan ku shukriyaa ilaahay caafimaad khayr qabta la sidii awlaas yahay Allah ii ka soo inaas ii noqdo aan jecelahay garta marka isbitaal iyo waxa sadaa geysay dhaqaatiirtu waxay iigu sheegeen walaahi walaala iska dhaxgala
walaalan iska wax iska soo qaataan waxay isoo siiyaan iska biishta. waa gartay marka xaaladiisa maadaama isbitaallo badan ay geyseen dhakhaatiirta maxay nii sheegeen dhakhaatiirka waxay dhaheen xamar wax ma ku qabo karno anaga waa inaad dibidda u qaadatiin dibiddiina waxaan ku qaadno ma hayno dad iska tabaryaraan iska nahay sidaa intaan isku taagan yahay xanuun see loo joogo xanuunaa qabanay waxay ku noqotay neerbo wuu kagaa marka hadda daraad u dambeysay saas oo kale waxaa laga reebay caanaha looda halaaga ilaaliya leh caan lo hilib lo timirta malaayaha intaas laga fiiriyaa hadda taabto intaas as taabto neerbaha kaca marka hadda qoyska nolosheeda iyo ku tirsan tahay qoyskaadase mise ayay ka kooban yihiin qoyskii waa 4 gabdhood iyo wiilkan intaasaan haystaa dad iska danyara iska nahay midaas yariista xagga fadhiso waay inta kalena 3 waa la qabaa dad iska danyar waay Sikriya bal waxaad nooga warantaa maadaama dhibaatadan hadda ay kugu dhacday bal xaaladaada hadda maadaama sidaas ay tahay goob caafimaad haddii aad tagtay wadankii maxaa lagu dhacay dhakhaatiirta maxay kuu sheegayaan dhakhaatiirta waxay dhaheen xamar wax ma lagaaga qaban karo bahasha meel xulee fadhidaa ummadda muslimka waxaan ka codsanaa oo soomaalida in xamar wax laga qabo in dibadda taa in la diro waxaan macnaa laga soo bixiyo si aan leero hadda soo baxay ahay in wax laga qabta aan ka muslimiinta ka codsanaya حتى الدولة حتى مدحوينها أما زي الوزارة أما قدوميها قبل كهذا حق عسنا إنه حليه قبته إنه يرقصهم عليه عن هاي ما دام كان يقول هذا. ما قلت مركا سكري دخاتيرتا ودن عينون أو حالات هذا يكون عافماد كرتو أي كل شيء من أجله. ودن كجرمال كامين دي خلاص. ما قلت قرشان وحكوا بحكر ما كل شيء مسمى. ما وحي مشيء. ما قلت. لكن كان أسكجر معنا. هندي أما هيدين جرمال كلاس مذا أورون. ما قلت. مركا فاميلكي قرابتني مركا كورن مع ونخون ويسي مسا فاميلك وكنا قدر ما دام معنا أبيجا عن حقا إسكان طبيعة كل الواي ونسكان حناقة كطلق مركا إسكو بعدين كل إلى هذا على هذا راح تعلق مركا بكاس أسكجرو طلقين وحيلين أباجا مدحيسان كوم حبينين وحنا ما دام أديك أقل دوم عني اللي هو يا معنا بكانوا وداعي وحنوصل عن هذه شغلة طلق وقرب كاتاكناي وحما إقامتين غير والد كاجا قفحون عليه ده كسيدها لقى عمسي مركا سكرية أنتي هذا دبعتها سانك وهاد ما دام صعد كانوا كل دبايو وحديناتوين ومرك خير على كل متنياتر لكن كحجيس وحيا على دبايا جرا اللي جاي صح هو حكمت فيليبكا لقطة عنها لقطة وكنت ملايقة تمرتا انت سوقنا ما لقاني انت سوقنا انا بروي مالنا مقا انت كلي باستي مالا انت عني اني دان قلالي افك قرتي لو ريغتي حنونكاس اي قبتي مدحنا marka inta dhibkaas ugu dhacana ma soo akare illa darbaha oo ka dago dhaqaaq ma muuji kari madaxa aad yahanana kaliya waxa la dhigay kaniini narbiyo kala isticmaal soo darbaha u digan buuq iyo qayladana ka fogaaw sida meelaha maskaxda degan كجوب كنا نبكاس كجرا ما كرت صعد كورا مرك خارج صعد والله سيلوجو مرنا وحواي جيسا وقتها واد مكتوب حنونيسو مرنا وادع مرنا وحوا دربيدا اسك خبسانه كاس كجرا ما كرت لك انت صعدتي اما انا كفتي بقى سو غارتي اسكو واجتا بوركان وكان كسو فورا habeen roob daayo shaki imaade kasoo baxay mitaadka guriga soo socday markaa da'ay marka waa soo socday waana soo socdaa taraanahay istaaga ka dhacay marka lugta ay xanuuntay jilka waxay gaaray alxamdulillah kaniiniyana abaad waa roonay alxamdulillah ugu dambeyntii haddii mar kale ummadda waxaad codsanaysaa ummadda waxaan ka codsanayaa ama madaxweynaha ama gudoomiyaha ama wasiir wasaaraha intaas waxaan ka codsanayaa inay wax si degdeg ah ugu qabtaan aan ka codsanayaa lubrikeena waa taan aan sheegay marka dhibaatadaas iska jirto inay soo baxayaan ah kuni ku jirno waxa ma adina ay dadeen qoysheeq iyo hooyada macaan mareesha asmaan
intaas aan rajaynaa. Sakariya Xasan Sheekh maadaama uu ka dhashay qoys danyara oo xilligan aanan awoodin in xaaladiisa caafimaad dalka dibadda intay u qaadaan si ay xaaladiisa u soo wanaagsanaato waxay ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaan asiga iyo hooyadii dhashayba in ay soo caawiyaan madaxda dawladda ugu sareysaba. Sakariya oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaasina qof dhalinyaro adduunka u horle ah mustaqbalna leh waxa uu rajaynayaa oo markaasi rajo ka qaba in xaaladiisa ay wanaagsanaato waxayna ka codsanayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay soo caawiyaan telephone numberka uu sheegayo oo Sakariya afkiisa ka sheegayo ayaadna kala xiriiri kartaan daawadayaal haddii aad rabtaan inaad caawisaan. ummadda waxaan ka codsanayaa ama madaxweynaha ama gudoomiyaha ama wasiir wasaaraha intaas waxaan ka codsanayaa inay wax si degdeg ah ugu qabtaan. aan ka codsanayaa rubrikeena waa taan aan sheegay marka dhibaatadaas iska jirto yaro had soo baxay aan ahay kuni koo jeeran waxaa umaadina eedada qoysheekh iyo hooyada macaan mareesha asmaan intaas aan rajaynaa. ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in lambarka aniga aan leeyahay waxa waaye furihiisu waa 6 lambarka hooyadeena waxa waaye furihiisa 6 waa 34 ani marka aniga hooyada 9kaas iyo 14taas aan kala duwanahay. marka ummadda muslimka waxaan ka codsanayaa waxay caawin iyo tabarbo in lambarkaas ay kala soo xiriiraan intaas ayaan ka codsanayaa Soomaaliya. 4 gabdhood iyo wiilkan intaasaan haystaa wadad iska danyara iska nahay midaas yariista xagga fadhiso waay inta kalena 3 wada qaba. ummadda Soomaaliyeed waxaan codsanayaa inay gacanta iga qabtaan oo wiilkii dibadda ii geeyaan oo caafimaadkiisa iga soo qabo ii soo celiyaan jecelahay Ilaahay dho inuu wax leeyahay qabto. waa tahay daawadayaal waxaan jecelnahay inaan intaasi ku soo gabagabayno barnaamijkii dhibanaha qarsoon oo magaalada Muqdisho idinkaga imaanayay gaar ahaan hooyiga Sakariya Xasan Sheekh uu ka degan yahay degmada Xamar Jajab. intuu barnaamijku soconayna waxaa si dhow ugu soo barateen xaaladda Sakariya Xasan Sheekh oo dhibaatadan ay ku dhacday 2016 xabad madaxa ka haleeshay saameysay neerfaha. Sakariya lugi dhacan ayaa dhacsan oo markaasi neerfahu ay saameeyeen sidaad arkaysaan. waxaa inoo balana daawadayaal inaad is caawisaan waxaad maanta adduunka ka hormarsato maalinta aakhira ay ka horeeyaan oo ajirkeeda aad helaysaa. intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa aniga Cabdiqaadir Umar Cabdullaahi barnaamijkeedii la socodsiinayay xagga kaamirada intuu barnaamijka socdayna waxaan ugu mahadcelinayaa Ismaaciil Allright oo inoo duubayay. tan intaan ku kulmi doona barnaamijkan kan xiga waad mahadsantihiin is caawiya meel kastoo aad joogtaan. حينكاغا محن نعبهي محن حبذي كنعي محن حبذي كنعي حينكاغا محن نعبهي محن حبذي كنعي حسردها اوغانيو دغالك خيغالدا جيرها دادسانيو حسوقات سبب تهاي حسردها اوغانيو دغالك خيغالدا جرحات سنيو حسوقات سبب تهاي